Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada akhbaraadka subaxnimo ee xogta ciyaaraha qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah Real Madrid oo xaqiijisay in aanay xiisaynin la soo wareegitaanka Neymar iyo Mbappe. Madaxweynaha kooxda Real Madrid oo sheegay in Eden Hazard xilli ciyaareedkan uu imaanayo garoonka Santiago Bernabeu. Sergio Ramos oo loo diiday inuu ku biiro si free ah horyaalka dalka Shiinaha. ciyaaryahanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane oo ka hadlay haddii uu ciyaari karo Champions League finalkiisa. Kooxda Liverpool oo aan ciyaari doonin koobka kooxaha adduunka xitaa haddii ay ku guuleysato Champions League. Maxay tahay sababtu? Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal idinku hayaa saaka wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha. Mar kale soo dhawaada. Aanu ku bilowno daawadayaal madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez oo bixiyay waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaa kashifay heshiiska ay kooxdiisu xagaagan kula wareegayso xidiga Chelsea ee Eden Hazard. 28 jirkan heerka caalamiga ee qaranka Belgium-ka ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu u wareegayo Real Madrid isagoo haatan guri ka raadsanaya caasimadda dalka Spain ee Madrid. Jariirada Marca ayaa horay u sheegtay in dhinacyada ay ku dhow yihiin inay heshiis ka gaaraan saxiixa ciyaaryahan Eden Hazard iyadoo ciyaaryahanku qandaraas 6 sanadood ah uu saxiixayo Los Blancos. waxaan dareemayaa in Eden Hazard uu imaan doono sanadkani Santiago Bernabeu ayuu yiri Florentino Perez madaxweynaha kooxda Real Madrid oo waraysi siinayay majalada Onda Cero. ayaan u xiisaynaa isaga oo inuu yimaado marka Real Madrid waxaan rajeynayaa inuu imaan doono waana mid ka mid ah xidigaha ugu waaweyn kubadda cagta ayuu hadalkiisa sii raaciyay Perez. sideen ula hadli karnaa koox ciyaaraysa finalka Europe League waxaan ku qasbanaan doonaa inaan sugno ilaa ay kulankaasi ka ciyaaraan markaas ayaan kala xaajoon doonaa la soo wareegitaanka xidigan oo aan aad ugu kalsoonahay ayuu yiri madaxweynaha kooxda Real Madrid. Hazard ayaa dhawaan u sheegay idaacadda Faransiiska ee RMC Sport waxaan kaliya ka fakarayaa inaan ku guuleysto Europe League kadibna wixii dhici lahaa ayaa dhacaya. waxaan filayaa heshiiska Eden Hazard uu ugu wareegayo Real Madrid in lagu dhawaaqi doono kadib finalka Europe League ayaa laga soo xigtay mid ka mid ah saaxiibada kooxda Chelsea ee Eden Hazard. ciyaarta finalka Europe League ayaa waxay ka dhacaysaa magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan halkaasi oo habeen dambe kooxuhu ay halka ku ciyaari doonaan habeenka Arbacada. kooxda Real Madrid ayaa suuqa ka doondoonaysa ciyaartoy dhowr ah oo safka hore uga jiro Eden Hazard oo la hadalhayay maalmihii la soo dhaafay inuu noqonayo saxiixa ugu muhiimsan ama ay kooxdu la wareegayso dhawaan. weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane oo dhaawac la maqnaa kulamadii ugu dambeeyay ee kooxda ayaa ka hadlay inuu ciyaari karo in kale Champions League finalkiisa oo la ciyaarayo 30 bishan. Harry Kane ciyaaryahanka heerka caalamiga ee xulka qaranka ee England ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar buuxa u yahay inuu ka qayb galo kulanka finalka ee Champions League oo ay la ciyaari doonaan kooxda Liverpool sabtiga magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain. hadalka laacibka reer England ayaa wuxuu imaanayaa kadib waraysi uu bixiyay ka hor maalmo finalka Champions-ka ka dhici doona garoonka Wanda Metropolitano ee ay ku dheesho kooxda Atletico Madrid. laakiin Harry Kane ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in go'aanka kama dambaysta ah uu ku jiro gacanta macalinka Tottenham ee Mauricio Pochettino laakiin isagu qodiisu haatan uu diyaar u yahay inuu safto kulankaasi. weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda maalmihii la soo dhaafay wuxuuna sameeyay jimicsi xoogan si uu uga qayb galo kulanka finalka ay la ciyaarayaan kooxda Liverpool sabtiga soo aadan. haddaba Harry Kane ayaa ka jawaabay ama jawaab ka celiyay su'aal ahayd haddii uu diyaar u yahay finalka Champions League wuxuuna yiri si wanaagsan ayaan dareemayaa inaan iminka kooxda ugu soo laabtay oo aan ugu ciyaari karo finalka. waxaan ku guda jiraa tababarka buuxa ee kooxda wax walibana waan samayn karaa aniga haatan waxaan joogaa meel wanaagsan ayuu yiri. waxaa inta uu sii raaciyay tababaraha ayaa qiimeyn doona wuxuuna go'aansan doonaa haddii aan diyaar ahay iyo haddii kale laakiin hadda wanaag ayaan dareemayaa diyaarna waan ahay haddii finalku maanta yahay xitaa diyaar ayaa u noqonaya ayuu yiri ciyaaryahan Harry Kane. madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa meesha ka saaray in si free ah ciyaaryahankiisa Sergio Ramos uu uga baxo garoonka Santiago Bernabeu isla markaana uu ugu biiro kooxaha dalka Shiinaha kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in si degdeg ah uu u badalbaday ciyaaryahan Sergio Ramos inuu ku biiro horyaalka dalka Shiinaha oo uu ka helayo dalabaad dheeraad ah ayaa wax laga weydiiyay madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez waraysi uu bixiyay haddii uu si free ah kaga baxayo kooxda Sergio Ramos waxaana uu yiri marnaba ma dhici doonto taasi in si bilaash ah oo Sergio Ramos kaga tago kooxda waxaana taa bedelkeeda uusan meesha ka saarin in macquul ay tahay in ciyaaryahanku uu ka tago kooxda xilli ciyaareedkan
warar degdeg ah oo Isniintii soo baxay ayaa sheegay in uu dalbaday Sergio Ramos in laga fasaxo kooxda oo ku biiro horyaalka Shiinaha kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha kooxda Florentino Perez iyo macalinka kooxda Zinedine Zidane. ciyaaryahankan heerka caalamiga ee xulka qaranka Spain ayaa la hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyay in uu go'aan ku gaaray inuu isaga tago kooxda Real Madrid kadib sanado 14 gaaraya oo uu ku soo qaatay halka inuu ku gaaro guulo waaweyn. waxaana arrintani ay ka dambeysay baa leeyahay markii ay isku dhaceen madaxweynaha kooxda Florentino Perez iyo ciyaaryahan Ramos. majalada goal.com ayaa fahansan in Ramos uu markaa kulankii uu la qaatay Zinedine Zidane iyo madaxweyne Florentino Perez uu markaa ku wargeliyay in loo ogolaado inuu isaga tago kooxda uu ku biiro horyaalka Shiinaha halkaas uu ka helayo dalab weyn. laakiin taasi waxaa la leeyahay waxay ku xirnaan doontaa in kooxaha Shiinuhu ay bixiyaan qarashaadka ay doonayso Real Madrid oo aysan si bilaash ku fasixi doonin 33 jirkan heerka caalamiga. Sergio Ramos ayaa noqon doona ciyaaryahankii labaad oo muhiimad weyn u leh kooxda ka oo ay lumiyaan muddo 2 sanadood gudahooda. horey waxa uu baxay Cristiano Ronaldo, haatan Ramos ayaa la hadalhaya. waxaana ay noqonaysaa ama adkaan doonta baa la leeyahay in si sahlan ay ku buuxiso kooxdu boosaska ay baneeyeen labada ciyaaryahan. kooxda Liverpool ayaan sanadkan ciyaari doonin koobka kooxaha adduunka xitaa haddii ay ku guulaysato Champions League. maxay tahay sababtu? waxaa arrintaasi ay salka ku haysaa isbeddel lagu sameeyay xilliga la ciyaarayo koobkan oo haatan laga dhigay 2021. waxaa arrintan ay qayb ka tahay qorshaha cusub ee FIFA ee la ansixiyay bishii March iyagoo doonaya in koobkan la ballaariyo isla markaana la qabto 4 sanaba mar. waxaa koobkan ku tartami doona 24 kooxood halka markii hore ay ku tartami jireen 3 kooxood oo qura, iyadoo Liverpool ay markaasi lagu marti qaaday inay qayb ka gasho tartanka soo socda ee 2021. si kastaba Liverpool iyo kooxaha xubnaha ka ururka kooxaha Yurub ee ECA ayaa ka soo horjeestay qorshaha FIFA waxaana ay diideen inay ka qayb qaataan tartankaasi. BBC-da ayaa shaacisay in warqadda ay ECA u direen FIFA ay u qorneed sida tan: si adag ayaan uga soo horjeednaa in isbeddel lagu sameeyo Club World Cup. kooxaha ka tirsan ururka ECA kama qayb qaadan doonaan tartankaasi ayaa lagu yiri warqadda. FIFA ayaa sidoo kale kala bedeshay waqtigii la ciyaari jiray koobkan oo markii hore ahayd bisha December waxaana loo wareejiyay bilaha xagaaga ee June iyo July. waxaana tartankan la ballaariyay ee Club World Cup ama koobka kooxaha adduunka lagu bedeli doonaa booska Confederation Cup oo isaga gibi ahaanba la baabi'iyay. waxaa taasi dhibaato weyn ay u tahay kooxaha waaweyn ee Yurub oo ka qayb galaya tartankan maadaama aysan helaynin waqti ay ku nastaan ka hor inta uusan bilaabanin xilli ciyaareedka cusub. Liverpool ayaana macquul ay tahay inay iska diido 100 milyan haddii ay doorato inaysan ka qayb gelinin tartankan kooxaha lacag lagu siinayo iyadoo ay markaasi ka soo muuqdaan kooxaha kale ee lagu marti qaadayo koobkan ayaa waxaa markaasi ka mid ah ku guulaystayaasha iyo kooxaha kaalimaha labaad Champions League iyo Europe League xilli ciyaareedka iyo 3 xilli ciyaareed ee soo socota. ugu dambeyntii kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay in marnaba aysan xiisaynaynin la soo wareegitaanka labada ciyaaryahan ee kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska ka dhisan ee Neymar Jr iyo Kylian Mbappe. labadan ciyaaryahan oo muddooyinkii dambe aad loola xiriirinayo kooxda Real Madrid isla markaana la hadalhayay in ay noqon doonaan ciyaartooy ay wax uga bedesho safka kooxdeeda ayaa haatan waxa ay leedahay kooxdu marnaba kuma riyoonayno inaan la soo wareegno labada ciyaaryahan. madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez oo waraysi dheer siiyay majalada Mundo ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in kooxdiisu marnaba aysan xiisa u qabin labada ciyaaryahan ee Neymar iyo Mbappe. waxa uu sheegay in ay ku fakarayaan in wax ay ka bedelaan safka kooxdooda laakiin aysan ku jirin dooqooda ama xiisahooda labada ciyaaryahan ee Neymar iyo Mbappe. arrinta ayaa meesha ka saaraysa hadalhayn xoog leh oo la hadalhayay in labada ciyaaryahan xilli ciyaareedkan ay ku sii wajahan yihiin Santiago Bernabeu. madaxweynaha kooxda Real Madrid hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo kooxdu ay markaa dadaal ugu jirto xilli ciyaareedkan in wax badan ay ka bedesho kooxda qaab ciyaareedkeeda oo ciyaartooy badan oo cusub ku soo kordhiso. Real Madrid ayaa ku dhameystay xilli ciyaareedkan kaalinta saddexaad ee La Liga iyada oo 18 dhibcood ka dambaysa kooxda horyaalka qaaday ee Barcelona. Atletico Madrid ayaana ku dhameysatay booska labaad ee kala sarreynta horyaalka Spain iyadoo taa lagu micneeyay in hoos u dhac weyn ay samaysay Real Madrid isla markaana xilli ciyaareedkii hadda dhamaaday kooxdu ay la soo kulantay dhibaatooyin aad u waaweyn. daawadiila wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan dib u kulmayna nabadgelyo. daawadi haddii aad ku cusub tahay page-ka fadlan subscribe noo saar adiga oo sidoo kale noo raacinaya comment aad ka bixinayso akhbaraadkii aan ku soo gudbinay mahadsanidin